إن ما أنتو حكى لنا عرين عن كأمسنا ويني والله آخر السنة ما لوجرا حالات بحالات دي كل حنتها سوي ريسو وحا هاي هوي صوماليات والله بك أمسنا واي مو فهمتي إن عنق يراي أو شنجرك هاي أو مقدشو ونيك كدلي شالي مرك أنا حلا أركي مرك والله وأرن آدي لوج حماضو يا آدي لوج حماضو هو ينك صوماليات وحكى عطنا مال والبيجوجان إني فوجنا ذان آدي اسكو إلاليان أيه أبد كودا مركا عنق ير أو شنجر وصد marka wallahi waa dhibaato ku soo kordho umada Soomaaliyeed bal nin dhan oo cunug looga tagay suubaraas ugu wada nafta kaga jaray subhanallah wallahi billah waxaan ku dhahay waa in saaid la isku ilaaliyo ya nimanka la iska ilaaliyo awal waxay aad hooyooyinka Soomaaliyeed la diri jiray hooyaa la dilay hooyaa saan la yeelay hooyaa kan ahayd hadda way ka soo gudubtay waxay maraysaa ciyaalka yaray oo masaakiinta oo saqiirada ah bal shanjir barees loogu waday yaa nafta laga jaray korkiisa inta dhaawac ku taal wallahi waa murugooda waa ka seexan waay fahanti marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ka codsanaya meel walba joogaan inay iska ilaaliyaan nimanka waxay noqdeen cadow loo soo diro hooyooyinka Soomaaliyeed haddana ubadkii ku darsadeen fahanti marka hooyaday cunuga ka saqiirayna waxaan dhihinaa samir iimaan Allah ka siiyo in oo haduu wax u yahay kuma qaraac baras ugu wada nafta kaga muu jareen ma fahanto nafta kaga muu jareen marka saqiirkaas waxaan ku dhahay saqiirkaaga aqri Allah kaaga dhigo laakiin ka foojignow nin dambe ina ilmahaaga uga tagtid ka foojignow hooyooyinka dhan waxaa la rabaa inay uga foojignaadaan marka wallahi samir iimaan Allah ka siiyo dhibaatadan Allah naga dulqaado Soomaali meel walba joogta dhibaata ku haysato marka dhibaatadan Allah naga dulqaado wallahi wax la sameeyo lama garanayo cunug yar oo saqiira ubaxa oo bal hooyo daadi ay ku curata adduunka ay ka fiirsan jirtay ilmo dhibaatadu leeyahay qofkii ilmo dhalay baa garan karo ma fahanti ninkaas waxa la arkaa inuu ilmo dhalinba oo ilmaha la yahay bombal lagu ciyaaro bal aaba ilmo dhalay wallahi malaynayo baras ugu wada korka ku jarjaray mid kale hooyooyinka nimanka kama fiirsan nin xuno qeyr mas'uul wallahi billah waxa xalo dhan waxa ku shaleynaa waxaan lahay markuu oo ka daba oo ay ka tagaysay maxay bal gacanta iskaga qabsan weysay maxay bal iskaga wada weysay isbitaala u socdaa nin hilibkiisa ma cusleeyo ma fahanto wallahi billah xaqiiqda hooyto dadka dhan ma isku mid ahayn ma ogi ana cunugayga ooynaay dhabarka ma xijin karin ma tagi karin ma cunuga ooynaay wallahi ina ka tagi karin ma fahanto ka ani dhal iska dhaafay ku kale ooynaay ma ka tagi karin marka ina waxa fiicneed inkastoo ilaahay uu waafajinin ay maxaan ku dhahay u qorneen waxa fiicneed in ilmaheeda ooynaay ay ka tagin ay gacanta iska qabsato ay iska kaxaysato isbitaalka ay meesha walba aado in iska wadato marka ilaahay uma qorin inta soo waqtigiisa ku ekaay sameeyeen waan Allah ka siiyo marka Soomaali Maxamed siib hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay is ilaaliya foojignaada caruurtiina inta badan u yeesha iska ilaaliya nimanka cadowga nimankii cadoway noqdeen wax la garabsado ma istaahnaan oo adeer ma istaahnaan oo wiilkayga soo ooynayo kaga tag wiilkaaga ina horta kaga tagtana ma mid baan ilaa hooyada Soomaaliyeed wada wixii dhici lahaa way dhaceen cunugan inuu dhintar way u qorneed wixii ilaahay ku qorar horta ma gafaysid laakiin way calool adag tahay wiilkeedii oo ooynayo inay nin islaameed uga tagto nin shala adoo ilmaha haysatay as guursatay waxba isku matihiin waa nin islaameed nimanka hooyooyinka ilmaha haysta guursadana adduunka waxay u necbiin ilmaha ma fahantay adduunka ilaahay waxay u necbiin ilmahaaga hooyada hadee wallahi ana ma qabo inay hooyo inay guursato nin ilmahaas aan dhalin waa cadow waay nimanka cadow waay adigay ku dilayaan ilmahaagi wax yeelayaan gabdhihi yaray dhibaatada aragtaa lagu suubinayaa marka nimanka hal iska ilaaliyo hooyooyinka ilmaha haysto waxaan dhihi lahay nimanka aad guursanaysaan iska ilaaliya ka foojigneeda oo ilmaha uga taganina oo ha isdhehin ilmaha waaridu u yahay wax uu u yahay malahan والله وحلا سمينا مقرنينا مسلمين ميل والبا جوغان isku soo duceeyo ducada muhiim ah dhibaatadan heesta ilaahay inuu naga dulqaado dadkii dhan oo ku gambanayna oo ragga ahaa oo dadkii wiilasha Soomaaliyeed oo ka dhalanay
haddee waxaa sameynaa inkastoo nimankoo dhan ay isku mid ahayn aabooyinka iyo wiilasha Soomaaliyeed dhan isku mid ma laakiin hal xuna ku jiro yaa bal cunug yaroo saqiira ninkii barees nafta oga jaray oo kale ku jiro fahamtay marka ilaahay waxaan ka baryaa in la xifdiyo isku soo duceeyno meel walba joogno yaa hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ka codsanay inay indhe iyo dhego u yeeshaan ubadkooda ee nin islaamid ooga taganin ay ii fiiri dhihin ma fahamtay oohin waxa ma tarayso waa iska ooyin waxa ma tarayso ma fahmino marka waxaan leeyahay meel walba joogno aan isku soo duceeyo insha Allah khayrka Allah na waafajiyo sharkana Allah naga qabto ducada un baa muhiim ah insha Allah muslimiinta meel walba joogaan ilaahay waxaan ku dhahaa ku xifdiyo marka